dalalka midabesha caalamka ayaa waxay taageero u muujiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxayna ku taageereen shirkii golaha qaran ee uu dhawaan uu ku baaqay. Haddaba aynu eegno dalka UK oo isagu war-saxaafeedkan soo saaray. UK ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay xaaladda Soomaaliya iyada oo sheegtay in ay meel xasaasiya marayso. Safiirka UK ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay laga maarmaan tahay in madaxda Soomaaliya ay sida ugu dhaqsaha badan ku soo gabagabeeyaan habraacyada doorashooyinka ee hadda lagu guda jiro si loo helo badbaadada doorasho nabdoon. Waxaanu hoosta ka xariiqaynaa ayay tiri muhiimadda ay leedahay shirka degdega ah ee golaha wadatashiga loogana hadlayo khaladaadka dardargelinta howlaha doorashooyinka ee hadda ay ku guda jiraan madaxda Soomaaliya. Safiirka ayaa intaasi ku dartay isla markaana sheegtay shirka golaha qaranku in uu noqdo mid xalliya habraacyada doorashooyinka iyo in la ixtiraamo madax bannaanida hay'adaha doorashooyinka. Waxaanu ku baaqaynaa dhammaan madaxda Soomaaliya inay ka soo qayb galaan shirka qaran oo ay si wax ku ool ah uga qayb qaataan wadahadallada. UK waxay ugu baaqaysaa madaxda Soomaaliya in ay ka fogaadaan danaysi gaara iyo fal kasta oo wax u dhimi kara habsami socodka doorashooyinka oo ay ka mid yihiin warbaahinta oo isku mariyaan hadallo aan loo meeldayn. Dhinaca kale, Maraykanka ayaa isaguna war-saxaafadeedkan soo saaray. Dowladda Maraykanka ayaa taageertay baaqi ku saabsanaa shirka jaraa'id ee golaha wadatashiga qaran ee la xidhiidhay habsami socodka doorashooyinka iyo weliba dardargelinta doorashada hadda ay Soomaaliya ku guda jirto. Maraykanka ayaa sheegay in ay lama huraan tahay in madaxda heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha si daahfuran una xalliyaan tabashooyinka ka soo noqday doorashooyinka si furan oo la aqbali karo. Waxaa lama huraan ah in madaxda heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha isla markaana u qabtaan si daahfuran loona dhan yahay una xalliyaan tabashooyinka si furan oo la aqbali karo ayuu yidhi afhayeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price. Dowladda Maraykanka waxay sheegtay in ay ka go'an tahay taageerada nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyada oo sheegtay in diyaar u tahay sidii loo gaadhi lahaa yool wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo habsami socodka doorashooyinka ee hadda ay ku jirto Soomaaliya. Cabdiweli Yuusuf Cumar, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.